Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Saakiiso Kliibsiga ciyaartooyda oo subax walba aad kala socotaan janaalkayga Bashir Maxamuud Beerdaro. Waxaanu barnaamijka alaaba ku soo gudbinaa wararka ugu waaweyn iyo qodobada ee subaxaasi kubadda cagta laga hadlayo. Wararka ugu waaweynna waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa si rasmi ah waxa ay yabo ugu dirtay xidig bulshada Dortmund una dhashay waddanka Mareykanka ee garabka duulay Christian Pulisic waxaana ay doonayaan xidigan inay soo hirgeliyaan iyagoo ku doonaya rikoor gaaraya 70 milyan sida ay ku dalbatay kooxdiisa. Xidigan 20 jirka ayaa isaguse waxa uu door bidaya kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah xidiga waddanka Spain khadka dhexna ka ciyaara ee Brahim Diaz 19 jir wuxuu doonaya inuu ka tago kooxda kubadda cagta City kuna biiro kooxda kubadda cagta Real Madrid xilli macallimiin Guardiola uu doonaya xidigan inuu ku sii hayo gudaha caalamiga stadium. Warar kale dhanka suuqa waxaa Arsenal macalinkooda Unai Emery ayaa sheegay in Ramsey uu horumar ka sameynayo qaybtiisa isla markaana si wanaagsan u fikirayo hannaan fiicanna uu kooxda la qaadanayo. 17 jirkan u dhashay waddanka Wales ee khadka dhexe ku caanbaxay ayaa go'aansan doona haddii kooxda uu isaga tegi doono isla markaana uu iska diidi doono yabaahyada kala duwan ee xidigan uu helayo. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Arsenal iyo Tottenham Hotspur ayaa ku dagaalamaya xidiga lagu magacaabo Andre Rabiot oo 23 jir kaas oo kooxdiisu ay kala hadlayso in qadar cusub uu u saxiixo kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain, laakiin Faransiiskan ayaa doonaya dhammaadka xilli ciyaareedkan inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah kooxda Juventus xidiga u ciyaara isla markaana u dhashay waddanka Brazil ee daafaca ka ciyaara Alexandro ayaa helaya yabo ku aadan 10 milyan oo euro u dhiganta 8.9 milyan sanadkiiba, taas uu ka helay koox aan la carabaabin oo Premier League ka ciyaarta. 20 jirkan ayaana lala xiriirinayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United xilli ciyaareedkan. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Arsenal, Chelsea iyo Tottenham ayaa dhammaantoodba doonaya xidiga kooxda kubadda cagta ee Real Madrid isla markaana u dhashay Spain ee khadka dhexe ee weerarka ka ciyaara Isco oo 26 jir sidii ay Premier League ugu soo dhaqaajin lahaayeen. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah West Ham iyo Mexico xidiga weerarka ka ciyaara ee Javier Hernandez Chicharito oo 30 jirna waxa uu doonayaa inuu isaga tago kooxdiisa kubadda cagta ee Hammers bisha su'aadan. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah macalinka kooxda kubadda cagta West Ham Manuel Pellegrini ayaa sheegay in ay 100 milyan kula soo socdeen 26 jirka England khadka dhexe u maareeyay kooxda West Ham ee Jack Wilshere, taasi oo aan la fasirin waxa uu la jeedo macalinka. Qiimahan waalida ah ee macalinka sheegay waxaase u badan tahay in qaab madadaalo leh uu kala jeedo, sidoo kalena xidigan uu u qalmo in qiimahaasi laga bixiyo maadaama uu yahay superstar weyn inkastoo dhaawacyo ay la degeen. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah xidiga Colombia weerarka ka ciyaara James Rodriguez oo 27 jirna wuxuu doonayaa in Bavarian-ka uu isaga tago maadaama 2 sano amaah uu kaga soo tegay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo Bayern Munich uu kula joogo, balse haddii xidigan uusan ku guuleysan booskiisa joogtada ah Niko Kovac oo hogaamiya kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, xidigan marka uu kasoo kabto dhaawaca xidigani waxay u badan tahay inuu kooxda gebi ahaanba isaga tago, waxaana uu doonayaa in si joogto ah uu ugu ciyaaro kooxda kubadda cagta Bavarian. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Chelsea xidiga ka tirsan isla markaana u dhashay waddanka Spain ee daafaca ka ciyaara Cesc Azpilicueta oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta ee Chelsea. 19 jirkan ay kooxdu u kordhiso mushaaraadkiisa waxaana ay ka dhigayaan 120,000 ay doonayaan in ay isbuuciiba haddii uu ogolaadeen qandaraas cusub uu qalinka ugu duugo kooxda kubadda cagta Chelsea, kaas oo ku ekaan doona marka la gaaro heshiiskaas cusub haddii uu ogolaado xidigan 2022. Gudahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Saakiiso Kliibsiga ciyaartooyda aan kusoo qaatay warar xiiso badan oo dhanka suuqa iyo warbixino mug leh oo la xiriira dhanka suuqa. Tani kulan dambe dhammaantiin sidaas iyo nabadgelyo.